السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan ku oranayaa waad baadsan tahay cajaladan aad daawanaysid. mar hadda cajaladan daawanaysid macnaheedu waxay tahay in aad tahay macmiil shirkadda Tawakkal Express xawaalada la yiraahdo Soomaaliya Tawakkal Express ama si aad doonaysid inaad ka noqotid macmiil cusub. waxa aan halkan ku sharaxi doonaa maanta hab casriyeedka cusub ee la yiraahdo e-Tawakkal oo ay soo saartay shirkadda Tawakkal Express. hab casriyeedkaas oo u fududeynaya macaamiisha e-Tawakkal in ay ku isticmaalaan internetka ama si online wax la yiraahdo xawaalad dirida ama se ay ku dirsanayaan lacagta ayna la soconayaan macluumaadka lacagta ay ku dirsadeen. haddaba si aad u heshid macluumaadkaas oo isticmaashid waxaad u baahan tahay inaad furatid accountkaas oo markaas aad ka furanaysid shabakadda internetka ee e-Tawakkal. shabakadda ayaa tegaysaa shabakadda internetka markii aad tagtid waxa aad taabanaysaa meeshaas shabakadda waxa weeye www.etawakkal.com pagekaas ayaa ku soo baxaya kadibna waxaad taabanaysaa meesha ay ku qoran tahay halkan new user. markii aad riixdid new user waxa ku soo baxaya page cusub. pageka cusub waxa lagaga baahan yahay macluumaadkaaga oo dhan sida magacaaga, cinwaankaaga, magaalada aad joogtid, state-kaaga haddii aad ku nooshahay North America ama haddii aad degan tahay gobolada kale ee dunida inteeda kale, zip code-kaaga ama post code-kaaga midka loo yaqaan, waddanka aad joogtid, email-kaaga. fadlan hubi email-kaaga inuu sax yahay oo halkaas ku qor. kadibna waxaad dooranaysaa username adiga gaar ku ah. systemka e-Tawakkal ayaa jeegaraynaya username-ka inuu sax yahay in kale. haddii uu sax yahay ama aan hore loo isticmaalin waad yeelanaysaa markaa username-kaaga. kadibna waxaad dooranaysaa password oo halkaas ayaad ku qoraysaa password. 2 goor baad qoraysaa si loo hubiyo qoraalka aad qortay inuu yahay mid sax ah. marka inta aad dhameysid halkaas waxaad ku shubaysaa ama si aad ku upload garaynaysaa masawirkaaga ama ID card-kaaga ama sida passport-kaaga ama driver license-kaaga ama wixii kaloo ID sax ah oo meesha aad joogtid ay bixisay waana inuu yahay ID sharciyeysan oo waddanka aad joogtid ka sharciyeysan. labada ID markii aad buuxisid labada waxay noqon karaan ama se ID driver license iyo ID ama passport ama ID iyo wixii la mid ah. kadibna waxa aad ku qoraysaa meeshaas loogu talagalay xarufaha ku qoran si loo hubiyo waxa buuxinaya meeshan inay tahay qof uusan ahayn machine ama robot. kadibna waxaad taabanaysaa halkan oo ku qoran tahay waan akhriyay dhammaan shuruudaha furashada accountka e-Tawakkal ee shirkadda Tawakkal Express. markii aad intaas dhameysid ayaa waxaad taabanaysaa submit. oo submit markii aad taabatid isla markiiba waxaa ku imanaysa emailkaas ayaa ku soo dhacaya kaas oo ku sheegaya shuruudaha lagaaga baahan yahay. magacaagiba halka ku qoran sida tusaale hadda magacan ku qoran waa Cabdulcaziz. welcome buu ku oranaysaa. markii aad halkaas samaysid annaga waxaa noo imaanaya codsigaaga markuu noo imaado waxaan hubinaynaa qofka aad sheeganaysid inaad tahay sax iyo in kale. waxa ay kale emailka kuu sheegaysaa si aad u furatid accountka waa inaad ku shubataa lacag $500 ah oo aad ku furatid accountka deposit-ka ah. lacagtaasi waa lacag adiga aad leedahay oo markiiba aad hore ka dirsan kartid oo meesha rabtid aad u dirsan kartid. laakiin si loo furo accountka deposit waa inaad samaysaa $500. deposit-ka waxaad ka samaynaysaa xarunta kuugu dhow ee Tawakkal adeegyada ka bixisa meel kasta aad joogtid. Tawakkal meel walba way joogtaa. lacagta markii aad deposit garaysid waxaan annaga arkaynaa systemkaagii accountkaagii oo markaas maamulka waxa uu fiirinayaa dhammaan macluumaadkaaga inuu sax yahay. markii la xaqiijiyo lacagtana aad deposit ku samaysid waxaa ku imaanaysa email kale ayaa ku imaanaya. emailkaas kale marka uu ku imaado wuxuu ku tusayaa emailka kale accountkaaga ayaa ku qoran oo halkaas waxaa kugu qoran username-kii aad dooratay iyo account number-ka aad cusub oo markaas systemka kuu suubiyey. aad iyo aad ayay muhiim u tahay inaad xasuusatid username-kaaga iyo account number-ka. emailkan markasta wuxuu kugu jirayaa emailkaaga ha iska tirtirin haddii aad ilaawdid si aad u xasuusatid emailkaaga. username-ka waa muhiim, account number-kana waa muhiim. labadaba waxaad u baahanaysaa inaad isticmaashid. emailkan markii aad heshid waxa aad markiiba u soo gudbaysaa systemka ayaad soo galaysaa. mar kale shabakadda waxaad imaanaysaa etawakkal.com oo markaas aad soo galaysaa systemka.
account-kii numberkii lagu sheegay ayaa halkaas ku qoraysaa account numberka markii aad ku qortid waxaad taabanaysaa ama se riixaysaa login halkan oo ay ku qoran tahay markii aad login riixdid waxa kuu soo baxaya page cusub ama bog cusub ayaa kuu soo baxaya oo ku weydiinaya username-kaaga iyo password-kaaga waa marka ugu horeyso systemka aad gelaysid marka username-ka iyo password-ka account aad soo gelisay haddana username iyo password baad gelisay kadib systemka waxa uu kula aadayaa halkan oo waxaad dooranaysaa 4 su'aalood oo adiga oo keliya garan kara 4taas su'aalood systemka ayaa ku weydiinaya jawaabtoodana adiga unbaa garan kara oo qof kale oo kula og ma jirto haddaba ogow 4taas su'aalood aad iyo aad bay muhiim u yihiin in ay jawaabtaada noqoto jawaab sax ah marka hore jawaabta koowaad halkaas baad ku qoraysaa mar labaadka sidaad u qortay oo kale waa inaad u qortaa halkaas baad ku qoraysaa mar saddexaadka iyo afraadkana halkaas ku qoraysaa markii aad dhamaystirtid jawaabaha su'aalaha lagu weydiiyay jawaabtooda waxaad taabanaysaa halkaas oo ku qoran tahay submit kadib waxaad ku noqonaysaa systemkii oo account-kaagii baa markale gelinaysaa kadibna username-kii iyo password-kii aad dhaxaysay ayaad gelinaysaa username iyo password-kii markii aad gelisid systemka marka waxa uu weydiinayaa su'aalihii aad ka jawaabtay mid ka mid ah midda ay noqonayso annaga garan mayno systemka ayaa dooranaya waxa kaloo halkaas ku qornaan doona magacaaga kusoo dhawo buu ku oranayaa systemka taariikhdii ugu dambeysay oo aad systemka loo garaysan halkaas bay ku qoran tahay su'aasha markii aad ka jawaabtid waxaad oranaysaa submit kadibna systemka waxa uu ku geynayaa meeshaas boggaas ayuu ku geynayaa oo ku tusaysa account-kaaga wixii balance ku ah iyo haddii aad lacag jirto iyo haddii markaas lacag aad dirtay oo aan weli la bixin maadaama uu yahay systemka markii ugu horreysay aad isticmaalaysid waxa ugu horreysa aad taabanaysid waxaa weeye account kadibna waxaad taabanaysaa deposit markii aad taabatid waxa uu systemka kuu soo saarayaa page cusub pageka cusub waxaa ku qoran lacagta markaas aad dhigatay marka weli wuxuu ku tusayaa inkastoo aad $500 geysay xawaaladii kuugu horreysay waxa uu ku tusayaa systemka in aysan waxba lacag kuu oolin marka deposit markii aad taabatid waxaa kuu soo baxaya page cusub pagekaas waxa uu ku tusayaa lacagtii aad deposit garaysay oo ahayd $500 meesha halkaas waxaa ku qoran magacaaga halkaas waxaa ku qoran email addresskaaga teleefankaaga maalintii aad deposit garaysay lacagta iyo intii aad deposit garaysay si lacagtaas aad u isticmaashid adiga ayuu systemka wuxuu kaa sugayaa amar marka waxaad u baahan tahay halkaas inaad taabatid oo aad tidhaahdid process markii aad lacagta process garaysid kadib ayaad isticmaali kartaa lacagtaada inta aadan process garaynin account-kaaga wuxuu ku tusayaa 0 laakiin mar alla markii aad process tiraahdid account-kaaga wuxuu isu bedelayaa in ay lacag ku taalo oo $500 lacagta markii ay ku taalo page cusub waxaad taabanaysaa halkaas ay ku qoran tahay payment si markaas aad dad ugu dirtid lacagtaada eheladaada waxaad taabanaysaa marka ugu horeyso send remittance markii aad taabatid waxaa ku soo baxaya page cusub oo markaas ah haddii aan ku noqono send remittance markaad taabatid kadibna waxaad taabanaysaa add new receiver oo maadaama aadan hore qofna kuugu jirin new receiver baad gelinaysaa oo halkaas ayaad taabanaysaa kadibna markii aad new receiver taabatid waxaa kuu soo baxaya page cusub oo ah macluumaadka qofka aad u diraysid lacagta macluumaadkiisaba gelinaysaa magaciisa koowaad magaciisa labaad fadlan xusuuso taleefanka inaad ku qortid area code-ka waddanka sida Kenya oo kale haddaad lacag u diraysid waxaad u qoraysaa sidan kadibna email hadduu qofka leeyahay emailkaad u diraysaa waddankii uu joogo iyo magaalada uu joogo markii aad dhamaysid macluumaadkaas waxaad taabanaysaa submit magaciiba kuu soo baxaya qofkii magaciisii meeshii uu joogo iyo nambarkii aad markaas ugu dirto qofka tusaale haddii aan usoo qaadan hadda magacii aad u diraysa lacagta cabdishakuur maxamed maxamuud hadduu uu yahay oo kale waxa uu joogaa boosaaso taleefankiisa waa noocaas waxaad ku dirtay lacagta meeshan ku qoran tahay cityga oo kale haddii qofka aad ugu diraysa qofka si telefoon ahaanad lacagta aad ugu diraysa sahal iyo saad oo dib kasoo sheegi doono waxaa kasoo baxaya cityga haddii laakiin lacagta aad u doonayso qofka inaad ugu dirtid magaalo ahaan waxaad magaaladiiba kuu soo baxaysa iyo waddankii
mar haddii qofkii uu kugu jiro marka dadkii aad u diraysay lacagta waxaad taabanaysaa ama si aad dooranaysaa qofkii aad u diraysay lacagta waxaa kuu soo baxaya page cusub qofka taleefankiisa magaciisa meesha uu joogo ayaa kuu soo baxaya haddii aad doonaysay markaa qofkii haddii magaalada uu ka tegay oo kale ama taleefan cusub uu yeeshay waxaa kuu soo baxaysa fursad oo markaas aad ku bedeshid oo ah halkaas baad taabanaysaa edit receiver details ku qoran tahay adiga macluumaadkaaga halkan ka soo baxaya senders detail adiga weeye macluumaadkaaga taleefankaaga iyo wixii la mid ah lacagtii baad gelinaysaa intii aad markaas u dirayso qofka waxuu ku oranayaa sababta u diraysid maxay tahay haddee biil tahay haddee wax kale tahay meesha ku qorani meeshan commentska ah fadlan ku qor wax haddii aadan wax ku qorin systemka kuma siinayo inaad dirtid kadibna markii aad ku qortid commentska aniga hadda waxaan ku qoray biil labadaba kadibna fine commission baa oranaysaa lacagtii inta lagaa qaaday hadda $50 oo kale markaan dirayo oo aan u dirayo kasoo qaad Soomaaliya 75 senti baa bixinaya dollar wax ka yar marka intaas markii aad samaysid waxaad oranaysaa submit baad oranaysaa qofkii markaas lacagtii way baxday oo qofkii lacagtii uu aaday haddii aad doonaysid marka inaad qofka sahal ama saad ugu dirtid oo kale ama telefoonkiisana halkaas baad taabanaysaa oo waa ku darsanaysaa telefoonka qofka waa inaad taqaanaa sida area codekiisa iyo telefoonkiisa oo buuxo kadibna systemka ayaa kuu ogolaanaya qofkaas haddii uu leeyahay account sahad iyo sahal ah halkaa waa kuu soo baxaysaa kadibna waxaa ku darsanaysaa dadka aad lacagaha u dirtid oo mar walba lacag aad diraysidna si sahal ah ayaad ugu diraysaa oo isaga oo markaas telefoonkiisii buuba lacagta ka helaya mana u baahna inuu tago markaa branch inuu tago markaa uma baahna magaalo walba uu joogana waad ka diri kartaa wixii markaas intaas lacagaha sida sahalka loogu dirana halkaas weeye wixii intaas dhaafsiisan haddii aad u baahan tahay waxaad nagala soo xiriiri kartaa marka telefoonka 480-385-9363 ama si xafiiska 612-332-666 waxaan rajaynayaa inaad marka aad ka faa'iidaysatid furitaanka cusub ee aad furatay e-tawakkal account oo aad lacagahaaga markaas si sahal ah mar walba ugu diraysid xusuusnow lacagta mar walba waa inaad deposit garaysaa lacagta oo aad geysaa xafiiska kuugu dhow tawakkal ee leedahay markii aad lacagta deposit garaysid kadib ayuu systemka sida doonaysa u isticmaalaysaa mustaqbalka hadduu ilaa yiraahdo waxaan doonaynaa inaan ku darno in account-kaaga lacagta aad ka soo wareejisid laakiinse markii aan kusoo dirno dhammaan macaamiishayada annaga ayaa idinla socodsiinaynaa mar kale aniga oo ah cali nacnac waxaan idin leeyahay aad baad u mahadsan tahay mar kale account-ka aad ka furatay e-tawakkal shirkadda tawakkal express oo mar walba ku dadaasha in macaamiisheeda ay u horumariso una fududeyso sida ay lacagaha ugu dirayso asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu